waxaan aad ugu faraxsanahay in shirkaasi aan maanta ku ansixinay heshiiska cusub ee aan la galnay shirkadda Favori ee maamusha garoonka Aadan Cabdulle. heshiiskani 2 sano ayaa waxaan ka soo shaqeynaynay sidii dib loogu qori lahaa si u roon dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed u wanaagsan. dakhliga inaga soo gala qaybtiisa badan ayaan insha Allah tacaala lahaan doonaa hadda wixii ka dambeeyay. heshiiska waqtigii loogu talagalay waqti laguma kordhinin waxba looguma darin. 14 milyan oo dollar oo cusubna waxay gelin doonaan horumarka airportka oo lagu dhameyn doono 2 sano gudahood haddii Ilaahay ka raali noqdo. arrinta horumarinta garoonku wuxuu soo jiidan doontaa diyaarado ka badan inta hadda noo timaado. 2 sano ee la soo dhaafay waxaa bilowday ugu yaraan 4 diyaaradood oo international ah ayaa hadda inoo bilowday, laakiin waxaan rajaynaynaa marka shirkadda Favori horumarinta garoonka ay hadda ka shaqeyso in diyaaradahaas iyo kuwa ka badan ay iman doonaan haddii Ilaahay idmo. dakhligana uu aad iyo aad inoogu kordhi doono. marka bishan July aan hadda ku jirno runtii waxay noo noqotay bil aad u wanaagsan. sida la socotiin kharashaadkii laga qaban jiray duulimaadyada dulmar Soomaaliya oo hay'ado kala qaban jireen waxay si toos ah ugu soo wareegayaan bisha July dhamaadkeeda. insha Allah tacaala dawladda Soomaaliya ay ugu soo wareegi doonaan shaqaalihii hay'adaha kale ay inoo maamuli jireen dhammaantood waxay ku soo wareegayaan dawladda Soomaaliya. marka waa maalinta ka dambeysay waxaan xorriyadeena ayaan runtii sii helaynaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. bisha December 2019 kana waxaa inoo dhammaan doona qalabeyntii gobolada hawada Soomaaliya. runtii waxay maraysaa meel aad uga sarreysa meelihii hore ay joogi jirtay.